dhalinyaro isku tagay ayaa ku midoobay hal abuurka warshada African Solution oo qashinka lagu soo daadiyo magaalada meelo kamid ah ka aruuriya si ay ugu bedelaan agabyo dhismo ama walxo bini'aadanka u isticmaali karaan guryahooda. asalkeeda warshada African Solution ay qaban jirtay waxay ahayd company ka shaqeeya qashinka magaalada Muqdisho ka qaada magaalada banaankeeda geeya. kadib waxaan oo soo baxday qashinkii magaalada aan ka nadiifinaynay ee dadka dhibayay inuu misna marka magaalada ka qaadno banaankii aan geynay inuu dhib kaleeto oo kii aan ka badbaadinay mid ka dabadaran inuu shaqeeyo uu bilaabay. markaas ayaa waxaan qorsheynay in qashinkan ma laga faa'iideysan karaa. waxaan samaysanay mashiino macmal ah oo gacan ku samaysa. waxaan bilownay inaan soo saarno aan qashinka kala socono laba qayb oo kala socono. qaybta bii'ada aad ku dhibto oo ah bacaha, caagta, jawaanada, wixii plastic oo dhan inaan dib adan u habeeno. dad badan ma oga in qashinka haddii meel loogu talagalay la dhigo in dib looga faa'iideysan karo. marka guud ahaan aad fiirisid magaalada Muqdisho waxay leedahay only laba system oo macnaha qashinka lagu daadiyo landfill sala adduunyada waxay maraysaa systemkii shanaad oo incineration meel dhaho jasiira agteena iyo meel kaaran lagu daadiyo qashinka. soo qashinkaas tirada badan haddii macnaha warshadan hadda wadada ay bilowdo lagu daydo ama ayada ay hormarto waxay horseedi kartaa magaalada qashinka inta ugu badan ama dawladda hoose in dib loo isticmaalo anaga ku intifaacno. ardayda dhigata kulliyadda deegaanka ee jaamacadda ummadda ayaa shirkadan uga faa'iideysta habka barashada dabiiciga ah. waxaana ay halkan ku sameeyaan qaarkood practical la xiriirta casharada ay ku soo qaateen jaamacadda. qaab waxaan u qaadan jirnay theory ah laakiin maanta qaab practical ayaan u qaadanay dhamaanteed waana lagu soo wareejiyay xaruntan iyadoo la soo saarayo qalabkii recycle-ka lagu sameeyay iyo iyadoo markaas lagu guda jiro ay bilow tahay mashiinadii lagu soo saarayo ayaan aragnay. waxaan rajaynaynaa mar labaad haddii sidaan oo kaleeto aan u soo booqano mar saddexaadka inaan noqon doono dadka ayaga soo saarayo waxaas. runtii markii dhinaca kale laga fiiriyana ka cilmi ahaan waxyaabo badan ay naga anfacayaan. haween badan ayaa subax walba xilli hore u kalaha gudaha magaalada si ay u soo aruuriyaan caagadaha ama walxaha kale sida qashinka lagu soo daadiyay meelo kamid ah magaalada. shaqo abuur ayay u noqotay arrintan. shaqadan iyo hadda lacagta aad ka heshaan meeshan macnaha hooyo Khadiijo Cusmaan ayada iyo saaxiibadeed oo qaarkood korinaya caruur agoon ah halkan waa goobta kaliya oo ay ka helaan nolol maalmeedkooda. طملم قوم قلت له ودكنه وبحنا شقة أثناء وذو قربات أفكاري حالنا روم وذات وذو قربنا نمين هاد برتقنا هم قرأ عنينا هاد برسويلة بحنا دلوان يبسنا دورك حمر قديس صح مركا لعقت أمريكا كهشان مركا العقل يكون فينا نلشينا مارين كرت متاعي ها وقنوله هنا نكو نحاولنا عنينا نقول بحمر ما غير كنا ونمسك توبينا علوله يصير عارض شوينا بالصورة عندك عمبولا يعملونه بزاي. أوكي يا مركب يا كوبيشة مركب العكس. المهين. ها. المؤيرتي دشي. ويرتي جوكت ويكون سالة الشخ ماله. أني لما يير أي جوكت كوي كلام وهير قلنا. ها. haddaba shirkadda qashinka u rogta agabka la isticmaali karo ayaan booqanay si aan u ogaano hababka ay u qabtaan shaqadan waana nooc shirkadaha dunida ay u fuliyaan howlahan dib loogu sameynayo qashinka. agabka soo saarno wuxuu yahay aan shiliga guriga la saarto antarlooga dhulka la dhigo bulukeetiga la isgelgeliyo iyo tiirarka oo loo isticmaalo. fursadaha iyo faa'iidooyinka ay shirkadan soo kordhisay ayaa laba arrimood oo ah in qashinka lagu soo daadiyo magaalada la geeyo warshadan isla markaana dib loo farsameeyo si looga soo saaro agab ay bulshada isticmaali karto iyo sidoo kale in shaqo abuur loogu sameeyo bulsho badan oo ku nool gudaha magaalada Muqdisho. arrintan ayaana dhiirigelinaysa maalgashiga dalka oo fursad dhaqaale u ah Soomaaliya.